markan xaga u soo noqono fankaaga wali fi heesku qosaysa abwaan intaad u geysatay ma ka codsatay ama adigu ma samaysatayba ha أنا هاسي قصيصة waxaa jirtay fanka waxyaabihii ugu sababay gabadh darteed ahayd iyo jacayl dartii anu markaa dee hooyaday aabahay la joogay laakiin nin shaqaysta oo lacag haysta maan ahayn oo hanti lagu tilmaamo sax heesaan markaa gabadha eraya ay ugu tiri darteed heesaan ka sameeyey dhaqaale ku weydiisamay gabadh macnihii nin iga dhaqaale badan ay raacday gabadha okay anigana dhaqaale oo khaas iyo ama haysan asagoo laakiin dhaqaale khaas oo haystay sax maday oo ahaa abiya ka dhintay hantida ayaa lagu wareejiyay asaga da ahaan igama weynin laakiin dhaqaalaha un baa laakiin lacag xagga lacagta iga weynaa lacagtaasna ku raacday soo markaa aan waa adduun jacaylkii kala iibsi joogo qofku jeebku maran yahay jaahil lagu tilmaamay bay heestaas heesta bal haddaan ii racdo ha noogu qaadi dadkaan dib u xasuusino وادون جعيلكي كلا إبسي جوغو قفكو جيبكو مرأي جاهي لاغو تلمامي اسمع سعيد وادون ننكي جوغا وادون جعيلكي كلا إبسي جوغو قفكو جيبكو مرأي جاهي لاغو تلمامي واي عدادن لعقيسن وحمتي وهاga waqti xaadirka ma la joogaa bay kula tahay adi Bashiir ahaan waqtiga heesta adiga qosada kugu dhacday bad ugu yaani abwaanka ugu codsatay ama heesta adigu u samaysatay waqti xaadirkan ma kula tahay markaad eegtid ama marxaladaha leedahay heestaasi waqtiya hadda aad aragtida ku haboontaan wallahi waxa qisada dhabta laga sameeyo waa joogto marar si wanaagsan hees waxaa jirta maxaad gudub qabiil iyo jacaylkeena kala galay oo aniga qaaday wiiliya gabadh qisa ka dhaxdhacday aanu qaaday mar walba dadku waxay dhahan niyo walaal maxaano ama gabadh haata ama nin haada inaad ani ii samaysay baa la mudaysta aniga qabiil ahaan hadda ka hor ama wiil la igu diiday ama gabadh la igu diiday dhahayaan marka qisooyinka dhabta waa wax mar walba joogto ah oo dhaca Soomaalina ka dhaca weey in qabiil la isku diido inay hanti gabadha lagu raaci waayo ama wiilka lagu raaci waayo inay magaranaysaa waxyaabo badan waaga inta fanka ku guda jirtay oo heesa sameeynayay wili qiso aad kaaga yaani aad ugu xumaatid ama aad uga naxdo lagu la yimaaday oo hees laga sameeyay ma jirtaa anzalay horta ma santa walaal waxa jirta fanaanku waa wacyigeliyaha bulshada كل دت كقاركوت أو فنانين يا فنك واحد كل كأميسن. أو مركي فنك باللابان يقعد عادي مركي فنك باللابان أو حب باللابان جاد سيجار خمر شيشة بلاي درايس. أو حكاية مسيين فنك هدي لك لقفكو يعني. معناها كل شيء كل هذا مركي لده إن هبل وفنان أما هبلوا فنانة كوح على أمين بالود ليه لكن إلى أن كنا متقلي الحمد لله بالود مليه أنا بالود هذا سبورت ويه سو حاجرت مركزاتكم سكمين ما هقارد بالود اللي سكمين ما فنانكو وعي قليها بالشدوي سوان أكسن هيس ودني هديتها دولكيس أمانيسة هديتها إن مقرنيسة حوي أو قف شعيل هيو هدو يهاي دليل ديرجلي هدو يهاي إن مقرنيسة إن gabar ku daasanay ama gabar nin ku daasanaysa inaad u turjunto hadii qof jacayl hayaad u turjuntida iska dhigto qofkii marka fanku waa wacyigeliyaha bulshada hees waxa jirtay aan qaaday abwaan aad iyo aad u qaali ah oo hadda Canada jooga Abdishakuur Qorana Cali afma gaxshaydaan hees uu sameeyay baa jirta oo qiso dhab uu ka sameeyay ma jirta baad ugu tir hees qiso dhab laga sameeyay moogtahay waxa jirta wiil baa gabar jeclaa gabadhi wiilka uu jeclaa de wax meera ma dhaxmarin isku wadana ma joogin ayadana Afrika joogtay isagoo Canada joogay soo gabadhi markay ay uu jeclaa
waxaa ugu talagalay inay isku magaalo ku noolaadaan isku yimaadaan program uu xareeyay soo sidiisa u waday gabadhii waxay imaatay Canada soo duushay wallahi nasiib xumo wiilkii iyo gabadhii oo indhaha iska qaadanay gabadhii geeriyood way dhimatay waxaana ku dhimatay garoonka gaariga ee kaga soo baxday shil gaari ku gashay wiilka gobolka joogay gobolka la ka soo degtay gabadha iyaguna indhis saarina way dhimatay si wanaagsan macnaheedu gobolka joogay ka soo degi rabtay laakiin ma garanay madaarada cilad farsamada wax ku timaatay gobolka la ka soo degtay qadartii saaxiibkii ku yiri garoonka soo qaad qisada sidii ay ku dhacday marka abwaankaas aan ku sheegayo baa heesta ka sameeyay heesta hadaad in kamida ana maqashisid cod ahaan ugu qaad may labada waa kugu samayn karaa heestu waxa leedahay waa hees de aad u qeyr badan dhool hilaacoon dhibiciisa sugayay daruuraysa heedo dhada iga barmarisiyo rajaan dur sugayo dayaxeed dhacay walow samir dhabiga yahay ifka waad ka dhimato nolol kala dhamaatay dib wuxuu ka joogaa aan adigu dhaxnoosho habeenaad iga dhixin waqti soo dhamaaday dhayma geeri ma lahayd waxay ku waayay dimiyaal soo dhalan bulay soo fanaan abwaankaasi wuxuu ka sameeyay wiilka xaaladda ku sugan yahay ka sameeyay de wiilkii geeridii iyo xaaladii iyo qofku jeclaa in laba indhood saarina hadana dhintay exactly marka dhooli hilaaco dhibiciisa sugayo daruuraysa haydo dhado iga barmarisiyo rajaan dhub sugayo dayaxeedi dhacay dayaxeedi dhacay walow samir dhabiga yahay ifka waad ka dhimato nolol kala dhamaatay dhib wuxuu ka jooga ana adigu dhaxnoosho habeenaadan iga dhicin unay habeen qudha aadan iga dhixin aadan iga dhixin waqti soo dhamaadiyo dhayma geeri malahe dhuuxay ku waayey dimiyaad soo dhalan hunay soo dhalan heestaaseed marka طبعا hees aad qiiro badan weeyaan oo de waa dareemi kartaa qof ka heesta laga sameeyay iyo de geerida kadiska qofka ku timaaday aad iyo aad waa hagaag waxaan u soo laabanaynaa dhanka qaraamiga sidii wala qaraamiga waan jeclahay aad isku fiicanahay waan jeclahay halka heesaha qaraamiga ugu jeceshahay maxaa kamid ah fanaaniin badan oo jireen oo qaraamiga qaadan qaarkood de intoodii badan dhinteen inay nool yihiin maanta ma yaxad ka xasuusataa ama qaraamiga adigu jecesho mar walba aad dhihi lahayd waqtiga xataa hadaad joogi lahayd heestaas aad qaadi lahayd waa saxan salay ana horta waxaan taageeraa on boqolkiiba boqol aan taageeraa fanaan weyn oo Soomaali weyn fanaankeeda koobaad oo ugu caansan fanaanintii hore dee fanaanin badan oo caan ah jirtay oo sharaf iyo karaamiyo ciis naga wada mudan hadana khaasatan ani waxaan sii taageeraa Xasan Aadan Samatar waxaan taageeraa heesihiisa oo dhan say u dhanyihiin Xasan Aadan Samatar waliba waxaan ugu sii jeclahay heestan saylo gaal badan aan ugu jeclahay markii Xasan laga soo tagay marka waxaan taageeraa oo kale fanaanka labaad ee ku soo raac hanuuniye hada heesiisa Shambariyo dabayla heesaas kale waan taageeraa si wanaagsan marka halka Bashiir waad mahadsan tahay maadaama heesaha qaraamiga labada fanaani waaweyn aad ugu jeceshahay organkana dawna hor yaala galabta hal heeso qaraamiga mid nagu tuurtay waa saxan salay horta baalkani wuxuu u baahan yahay barasho fiican u baahan yahay aniga ma aqaani صح
dadka ana aqoonin sidii noo kala ah baa laga yaabaa inaan macallin oo hayo oon ka uga dhowahay aada weyn anu hadda meel isaa loo riix ma garanayo laakiin macallimiin waxaa jirta qaab walba oo tumisa ana qaab walba uma tubi aada weyn laakiin waa isku day aan sameynayaa